السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka, waxaan salaamayaa asxaabteeda nagu xidhan, waxaan salaamayaa ardayda aadka u qiimaha badan ee aqoonsiga online academy, waxaan sidoo kale salaamayaa waalidiintooda sharafta mudan, waxaan salaamayaa dhammaan cid kasta oo jecel waxbarashada, waxaan salaamayaa oo aan doonayaa maanta inaan u hambaliyeeyo una bogaadiyo dhammaan ardaydii isu diiwaangeliyay fasalada cusub aynu dhawaan shaacinay oo diiwaangelintooda ay ku siman tahay maanta casharadii iyo fusuushiina ay si dhaqso ah ugu bilaabmi doonaan. waxaan ugu hambaliyeynayaa go'aanka geesinimada leh ay qaateen ee ay go'aansadeen inay wax bartaan, inay aqoon kororsadaan, inay waqtigooda qayb ka mid ah ay u huraan sidii ay naftooda wax anfaca, wax bulshadooda anfaca iyo wax ummadda Soomaaliyeed anfacaba ay u bartaan. runtii aad waxay u muujiyeen dhiiranaan iyo geesinimo iyo hal adayg. waan ku bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan idinku bogaadinayaa, waan idinku hambaliyeynayaa. waxa aynu qaadnay oo aynu hore ugu soconay, hore ugu tallaabsanay tallaabadii koowaad ee dhanka horumarka. waxa aynu inta uga gudbaynaa inaynu wada shaqeyno oo aqoontii iyo xirfadii aanu haynay aanu idin soo gudbino, idinkuna aad sida wanaagsan ee ugu fiican aad uga faa'iidaysataan. waxaan intaa ku xigsiinayaa oo aan jecelahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad halkan uga faa'iidaysto weli ardayda aan ku dhiiran ee aan go'aansan ee aan nala soo xidhiidhin inay weli fursad haystaan, weli fursad ay naftooda wax tara oo anfaca mustaqbalka fog iyo waqtigan xaadirkaaba ay haystaan oo ay ka faa'iidaysan karaan waqtigooda. ay u baahan yihiin inay ku dhiiradaan waqtigooda, waqti ka mid ah intay iska jaraan ay u horaan sidii ay wax u baran lahaayeen ee aqoonta ay u kororsan lahaayeen, aqoontoodana ay u kobcin lahaayeen. weli jaaniska kuma dhaafin, habeen kaama tegin. waxa weeye waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku dhiirato oo aad go'aankaas aad qaadato. waxaan sidoo kale ogeysiinayaa ardaydii isu diiwaangelisay ee dhowaan ay casharada u bilaabmi doonaan inaad heli doontaan oo fasalada ay idinla soo wadaagi doonaan macallimiinta aad xiisadahooda iyo maadooyinkooda ay isu diiwaangeliseen, waxa shuruudaha lagaa rabo, qaabka ay xiisadu u soconayso, sida aad macallinka ula soo xiriirayso, sida lagu caawinayo, waxa lagu siinayo ee resources ah ama imkaaniyaad ah ama aad u isticmaalayso waxbarashada sida buugaagta iyo meelihii kale ee aad ka tixraaci lahayd waxyaabaha aad dhiganayso. waxaa sidoo kale lagu sheegi doonaa xilliyada waqtiyada ay waajibaadka adiga lagu diray ama asaymanada ama exercisyadu xilliga ay leeyihiin. sidoo kale waxaa lagula soo wadaagi doonaa wixii kale faahfaahin dheeraad aan u aragno fasalada iyo halkii laydinku talagalay laydin diyaariyay baad ka helaysaan warbixinta noocaasa. mar labaad iyo mar saddexaad waan idin hambaliyeynayaa. soo dhawaada baan leeyahay, ku soo dhawaada macallimiin iyo shaqaale idin heelan oo idin diyaara oo idinka idin shaqeynaya habeen iyo maalin. waxaan sidoo kale mar labaad ku celinayaa oo aan bulshooyinka iyo dadka ay daawanaya muuqaalkayga soo gaadhayaba aan ogeysiinayaa weli ilaa maanta inaad haysato waqti aad isku diiwaangelin karto, nagula soo xiriiri karto fasaladu intaanay kaad birsamin. aad iyo aad baan idin salaamayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.